wariye samafale cabdimaalig sheekh muuse coldoon oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay buug wasaaradda waxbarashada iyo sayniska sheegtay inuu ka hor imanayo diinta islaamka buugaasi oo lagu dhigo dugsiyada waxbarashada ee Soomaaliland waxaana maalmihii u dambeysay buugaasi si weyn loogu hadlayay baraha bulshada ku kulanto waxaan shirkan jaraa'id u qabtay inaan kaga hadlo arrin la hadalhayay maalmahan dambe oo ku saabsan buug la sheegay in aan waafaqsanayn shariicada islaamka oo lagu dhigo qaar ka mid ah dugsiyada dalka arrinka aan ka hadlaya maanta waa cinwaankiisu waa ka markii ay taariikhdu ahayd 27 bisha 8 2020 wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu xaqiijiyay jiritaanka buug ka soo horjeeda diinta islaamka oo lagu dhigo qaar ka mid ah dugsiyada waxa uu kale oo raaciyay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidda ku cadaato arrinkaasi ama ku lug yeelata arrinkaasi waxa uu hareeyay oo xilka lagaga qaaday agaasimihii waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada Abdullahi Yaasiin Diiriye oo xilkaas soo hayay in ka badan 20 sano agaasimaha xilka laga qaaday oo warbaahinta la hadlay 29 bisha 8 2020 ayaa isaguna dhinaciisa xaqiijiyay jiritaanka buugaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa buug kaabe ah oo aan ahayn buug muqarrar ah maalin kadib markii ay taariikhdu ahayd 3 bisha 8 2020 waxa ka soo baxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland war saxaafadeed lagu sheegay inuu jiray buug cilmiga bulshada ah oo tusmadiisa ku jiro cinwaan tuhun dhalin kara sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in maktabadaha qaarkood ay iibin jireen buugaas balse aan hadda lagu iibin Soomaaliland cabdimaalig muuse coldoon oo hadalkiisa sii wata waxa uu su'aalo dhowr ah weydiiyay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska isagoo sidoo kalena baaq u diray culimada Soomaaliland haddaba waxa isweydiin mudan oo aan wasiirka waxbarashada weydiimaha yaa ogolaaday buugaas in lagu dhigo dugsiyada qaar labo dugsiyada lagu dhigay buugaasi waa kuwa ma saddex maktabadaha iibin jiray waa maktabadahee maxaana looga joojiyay afar cinwaan tuhun dhalin kara maxaad uga jeedaan shan yaa tallaabo ka qaadaysaan ma dadweynihii ka hadlay dhinacooda jiritaanka buugga ka soo horjeeda diinta islaamka sida aad adiguba sheegtay mise kuwa ku dhigaya dugsiyada qaar intaas ayaan doonayay inaan idin la wadaago arrinkaas oo ah runtii arrin aad u muhiima yani waxbarashada ubadkeena iyo diinteena islaamka oo ah lama taabtaan oo aanay u oolin wasaarad ee inoo wada taalo dhammaanteen inaynu ka hadallo maadaama la sheegay buug inuu jiro buug aan waafaqsanayn diinta islaamka sidoo kale ubadka loo dhigi karaa waxa weeye maaha ubadka aabbayaasha dhalay iyo hooyooyinka dhalay kaliya dhammaan waa ubadkeeni iyaga qura ku hadlayn mayno laakiin waxa weeye waa ka hadlayna maadaama arrinku saas u muhiim yahay ayaa kaliftay inaanu ka hadallo weydiinaha shantaana waa mid ku maqan wasiirka waxbarashada inuu jawaabahooda nala wadaago ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.